wuxuusan ratigu qaadi karin laakiin orgigu qaadi karo wax ratigu qaadi karo orgigu qaadi karo ee kaada hadee aan xusuus u raadsaday taase baaba in la qaday waxaan u malaynayaa dhawaaqa inay tahay markuu ariga ku qalaaday oo meel fog laga soo raacayo qayradiis ratiguna de inta qayrada ma gaarsiin karo no kuna wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee Suways iyo su'aalaha oo ah barnaamij toddobaadle isla markaasna aad ka daawataan channelka Suwayska Cayte iyo page-ka Suways iyo su'aalaha bal toddobaadkan iyo barnaamijka su'aalahan dadka weydiin doona nala daawado su'aalaha kugu soo dhaweynaya ku dhawaay su'aashu waxa ku leedahay waxa sheegtaa wax orgigu qaadi karo laakiin uu sartigu qaadi karin orgigu qaadi karo ratigu qaadi karin maashaas waa bahal aday orgigu wax uu qaadi orgigu wax uu qaadi karaa laakiin ratigu ma qaadi karo wala taas waliga baadiyada waliga ma aadin laakiin hadaa fikirtid maxay isleedahay orgigu wuxuu qaadi karo aan ratigu qaadi karin ma jiray wax orgigu qaadi karo ratigu qaadi su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa weeye jacaylkaaga kuugu horeeyay maxaa ku xasuusataa waxa ku xasuustaa jacaylkii ugu horeeyay waxa walaalay qalaata waa dhiiqa lagu ay kaleysaawiya jacayl ma yeelan bay laakiin waliga jacayl ma yeelan nin qablana ahay oo jeeday nin qablana ahay oo jacayl ma yeelan kubadaas bacbac heesaha oo kale maxay yaa tahay waxa taageeraa Sharon Boy heesti ma ogi wax weyn ma arkeen ma ogi jacaylkaaga hore maxaa ku xasuusataa waxaan ku xasuustaa waa noloshii igu horeysay ma ilmaagu karo alxamdulillaah rabbil caalamiin intaan la soo qaatayna waan ogahay alxamdulillaah koow gurigayga markaan ka tagay ninkii ugu horeeyaan guursaday waxyaalo badan oo xishood iyo farxada labadaba waa jidhaa waayahay su'aasha marka weydiinayo kale waxa weeye ragga goshi waa maxay ragga gogoshiis mashir mise ragga goshi su'aashu waxay ku leedahay waxa sheegtaa ragga gogoshiis waxyaalaha qoyska iska weeye taasna qof kasta garanaya waxyaalaha gogoshada waa labada qof waxa kala dhex mari karaa jacaylkaaga kuugu horeeyay maxaa ku xasuustaa kaamirada aad eegay waxaan ku xasuustaa gabadhan ku xasuustaa gabdhaha adugu baarkii gabadhiga soo maxaa ku xasuustaa inuu jacaylku leeyahay xigmad leeyahay wax ratigu uusan qaadi karin laakiin orgigu qaadi karo sheeg wax ratigu qaadi karo u kaadaan u fakaree orga qaadi kara waa ii goysay taas waa ii goysay jacaylkaaga kuugu horeeyay maxaa ku soo xasuusataa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga jacaylkaygu waa anigu dadkan waa ka duwanahay hadda facebookyada soo ka hadla anagu jacaylkayga waa ka duwanaa wuxuu jacayl ka duwan anaga waxa weeye waxaan jacaylkayga waxaan ku xasuustaa wuxuu ahaa hidii dhaqan buu ahaa fardaadna la ku soo galbi jiray qoryaha la soo ridi jiray awr baa laga qalqali jiray anagu saas ahaa kan haddana seeyahay kan hadeerta waa ila waalan yahay aniga hadeer gurigayga waxa yaala sariiraha kashafka halka waxay ku leeyihiin muraayad dheegaana muraayad dabadana muraayad wax fiican maaha muraayad maxay yeelaysaa waxay yeelaysaa waxa dadka xishood ka kaxiyo muraayad ah laga daayo aniga waa sayla tahay marka muraayad gabadhi waxay eegaysaa anaba qajilo oonina gurigaygana way taala may raacaysa may aniga lafteed marka arko muraayada shaarka hadaas anaba qajilayo oonina waxaan marka gabdhuhu ku qanacsan yihiin ha laga bedelo hatta waxaan leeyahay sharciga ha loo baaro annaga waaga hore gabdhuhu inay qarsan jireen markaan habeen ku yeedhino gogosh been ku sheegi maayo fanuusana waa damin jireen haddana leydhkaas la shidaya gabadh wala waxay soo taagtay facebooka waxay halay daawad wax fiican miyaa anigu gabdhahaygu hadday afka caseeyaan been ku sheegi maayo taasaan kaga shaqeeyay والله تاسع كذا شغية والله سودار ما سجال قبلود باني يشوق هذا أفكار محيو عسل سوابا قبله أديك قبلها سايقاني أديك أهان شعيل كاج معني هل يلا وحياة أكو حس ما والله الهرت شعيل كاسو هذا يروح حتى هياي waxaan waaye dadkaygii been ku sheeg maayo
markaas hadda yartaas waa dadkaygii waa u egtahay markaan arko gabadh afcas baa jacaylka nacabaanu wakaa maanugu dee haddaa dadkaygii suwaysi su'aalaha kugu soo dhaweynaya oo ku dhawaay baa Cabdullaahi Cabdirashiid oo ku magac dheer Cabdullaahi Cabaay cabayow su'aashu waxay ku leedahay fanaaniinta yaa taageerta fanaaniinta hadda jira mise kuwii hore hadda fanaanka jira waqtiga la joogaa markasta la jaan qaada Sharma Boy waa taageernaa Sharma Boy baa taageertaa heesihiisa xabad ka mid ah wax ma ka xasuusataa heesihiisa waa xasuustaa aad iyo aad waxaa ka mid ah hadda heesihiisii u dambeeyey iyo saas weeye miyaa Minnesota miyaan joogaa ma ogi imaaraadka waxa laga wada ma ogi miyaa intaas xasuus jacaylkaaga maxaa ku xasuusataa oo kuugu horeeyay jacaylkayga igu horeeyay waxyaalo badan baan ka xasuustaa waxaa ka mid ah ma gabadhii yacni baa ula jeedaa waxyaalo badan baan ka xasuustaa dee aan sheegi karin yaa xaggan kuma soo koobi karee marka hal iyo laba nooga sheeg magaceedii waa kuu sheegayaa wax kale kuma sheegi karee wax kale aad ku xasuusatid ma jirto wax kaloo aad xasuusto dee xaggan ku sheegi karo ma jirto barnaamijka maanta marti baan ku ah hadaan ku dhaho bal jacaylkaaga hore maxaa ku xasuusataa wallaahi su'aashaas waa su'aal afka gelisa marka waxyaabo badan baan ku xasuustaa عرر وين سؤال ay jacaylkayga ugu horeeyay waxaan ku xasuustaa wuxuu i baray inaan anigu nafteeda aan shaqaysto oo anigu aan isa soo saaro oo anigu aan wax qabsado inta jacaylkiiba i baray jacaylkii markuu dhammaaday ayuu wuxuu i baray inaan anigu wax noqdo wakaa heesaha maxaa dhagaysataa oo jeceshahay waxaan dhegaystaa qaraamiga aad u dhegaystaa cajabay cajiibay cawo iyo yaanay caqligaad xadaysaa allah ciise jacaylkaaga kuugu horeeyay maxaa ku xasuusataa yaa jacaylkaaga kuugu horeeyay maxaa ku xasuusataa jacayl iguma horeey iguma horeey marihid hadda ma damacsantaa ragga goshi maxaa weeye ragga goshi waxyaabo badan maxaa ka mid ah yaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabo badan haye hal iyo laba nooga sheeg ma garanayo ingiriiska ma taqaan haye cuntaa u baahanahay ingiriis ku dhig yaa cuntaa u baahanahay I have food jacaylkaaga hore maxaa ku xasuusataa jacaylkayga hore waxaan ku xasuustaa dee jacaylku maalinba jacaylku meel buu marayaa moogtaa kaygii iigu horreeyey oo u horreysay haddaan soo xasuusto waxaan ku xasuustaa warqad baa intaa u qoray baa warqaddii dhulka iga dhuntay ma garata magaalada iga dhex dhuntay maalintan waxaan arkay jacaylkii dhan magaalada looga sheekaysanayo hebelba hebelaa jeceshahay miyaa marka xasuustiisa iga wabaysa kaas yaa markaa jooga wax soo xasuusta anuu hurdo xataa xasuusta jacaylkayga iigu horreeyay waxaan ku xasuustaa gisi su'aalaaga sii farabateen horta ani jacaylkayga ma aragtay kolley bini'aadanka qarbo qofo sibuu helaa kasako haddana dadka siyaabo fara badan buu helaa dadka qaar kolley laba shay buu jacaylka laftarkiisa u qaybsamaa qaari qooq buu qabtaa oo waa nin naag doonaya qaarna waa mid hadduu alla ku roon yahay dee gabadh jecel oo gabadh iska jeclaanaya oo hal keliya ku jeclaanaya laakiin ka qooqiya mid hadduu waayo midda kale haddii gabadhba loo keeno ama mid ha weynaato ama ha yaraato kaasi waxay noqonaysaa inuu iska qaato oo gabadh ahaan uu gogol maadaama ay leedahay dee wuxuu uga baahnaa oo dhan naagay leedahay uu qaadanayaa laakiin ta jacaylkii waa mid qofka keligii dhaawac ku keenta qalbiga oo xabadda qofkaas iyadoo weyn haddaad la kulanta xataa waad ku kalsoonaanaysaa iyadoo shandhal ama afardhal waxay doonayaan noqoto rag gogoshi waa maxay ya rag gogoshi waa dumarka
dee waxa dhan ay nolosha ku tiirsan yihiin waa ayaga waayahay jacaylkaaga kuugu horreeyay maxaa ku xasuusataa wallaahi waxyaabo badan baa ku xasuustaa laakiin ma la soo koobi karo laakiin hal ereyaa ka xasuusta wuxuu ahaa maxaa cunta bas waxaa sheegtaa wax uu orgigu qaadi karo balse uusan ratigu qaadi karin wuxuu orgigu qaadi karo oo uusan ratigu qaadi karin wallaahi su-aashii haddaan isku dayo waxay noqonaysaa oo malaynayaa dee ma aqaan wallaahi ma garanayo yaa walaal waxaa sii ilaa dee markaa wuxuu orgigu qaadi karo dee ratiga awood badan iyo orgiga marka walbaadaya jacaylkaaga kuugu horreeya maxaa ku xasuusata jacaylkii igu horreeyay wallaahi jacaylkii igu horreeyay haddaan kuu sheego farxad badan bay la qaadan jiray marka gabar aad u wanaagsan bay ahaan jiray waxaan ku xasuusan jiray sheekooyinkeedii aan xiisan jiray marka mar walba marka la hadlayo gogoshi waa maxay raggu gogoshi waa guurkada diinta ma garan jacaylkaaga kuugu horreeyay maxaa ku xasuusataa jacaylkii ugu horreeyay haddaanan lahayn maya soo marin weligii ma soo marin inaan caadi iskala hadlo ma ahanin laakiinse jacayl aan de u qaado ma jiro marna waa soo guur ma damacsaneed wax ma jeclaatay marna aana damacsanahay weligeydaanu ma jeclaa ma dhegaysataa fanaaniin kuwii hore kuwii dambe heesaa haaban dhegeysta maxaa ka mid ah heesaa dhegeysatay fanaankee fanaanin badan baan la dhegeystaa suldaan seeraad maxaa tahay iskilaaji way badan yihiin adigu heesahooda fanaaniintaada aad taageertid heesahooda wax ma ka xasuusataa suldaan seeraad ma xasuusta heestan uu yidhaahdo inkastaan dawaafo dabeedaha wareegaba markaan ku doortaan dugsi raaxaday gal heestan uu yidhaahdo u dambaysa heestaa marka adiga dareen gaara miyay kuu leedahay adigu wallaahi dee dareen gaara ima laha laakiin si waan iska heesaha dee waan iska dhegeysta heesahan dee iska yar qabto rag ogoshii waa la yaqaan dadka oo dhan baa yaqaan dee waa nabadgelyo rag gogoshii waa maxay gogoshii dee hadba si way noqonaysaa hadday doonto gabar korkeeda ay noqon doontaa laakiinse saa aaminsana waa nabad baa aaminsana anigu waatay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawanayseen barnaamijkii Suways iyo su'aalaha aad ka daawanayseen channelka Suways Kacayte fadlan haddii aad su'aalaha qaar ka mid ah aad garatay hoos noogu qor barnaamijku waa barnaamijka xiisaha lahaa Suways iyo su'aalaha aniguna waxaan Suways Kacayte dhinaca kaamirada waa Jacfar Macalin Maxamed barnaamijkan mid ka xiga inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo